quusashadu waa rajabeelid ama waa in aad faraha ka qaado waxa aad rabtay in aad guul ka gaarto adigoo u aanaynaya in aad marar badan aad ku fashilantay waana dabar adag oo ku xiran maskaxda dadka taas oo u diidayo in uu dhaqdhaqaaq sameeyo iyo in uu fakaro kadibna ay ka dhigto isaga in uu aamino in uusan ahayn wax jiro sababta koowaad ee qofka guulaystaa waa isagoo aan marnaba quusan dadka guulaystay waa dadka aan weligood aan quusanin sheeko xigmad leh nin beeraley ah oo beer weyn lahaa ninkaas beertiisa dhowr jeer ayuu ku khasaaray markii dambe wuxuu go'aansaday in uu geed weyn oo beertiisa ku ag yaalay inta hoos fadhiisto uu ka fekero wixii oo beertiisa ka yeeli lahaa maadaamuu dhowr jeer khasaaray isagoo geedka hoos fadhiya oo ka fekeraya halkii uu dhaqaajin lahaa ayuu isha la raacay quraansho oo geedka jiridda ka soo koraysa oo markay xoogaa socotaba soo dhacda quraanshadu ma quusato oo mar waliba ay soo dhacdo way ku celisaa koritaanka geedka aakhirkii quraanshadu waxaa u suurta gashay in ay geedkii fuusho oo ay gaarto halkay rabtay ninkii halkaas wuxuu ku qaatay cashar oo wuxuu ogaaday wax waliba oo loo sabro in la gaari karo sidaas ayuu beertiisii dib ugu noqday ilaa uu aakhirkii ka gaaro guusha wax uuna noqday maalqabeen weyn qaar badan oo guuldaraystay waa kuwa aan ogsoonayn sida ay ugu dhawaayeen guusha marka ay faraha ka qaadayeen guusha gaaristiisa mar waliba oo waddo kaa soo xiranto macnaheeda ma aha in aanu waddo kale jirin ama aysan furnayn dabcan way kuu furan tahay laakiin waxayse kaaga baahan tahay baaris noqo sida biyuhu iyadoo socdaan hadday dhagax ku soo beegmaan dhinac ayay ka maraan haddii dhinacyadu ka xiran yihiin dhagaxa dushiisay maraan haddii ay meel walba ka soo xiran yihiin dhagaxa hoostiisa ayay ka dusaan hawa ogolaan naftaada quus waayo quusashadu waa albaabka soo xira albaabada isku dayga marnaba ma guul dareysanin ilaa aad joojisid isku dayga